السلام عليكم أصحابتا kusoo dhawaada muuqaalkeen maanta Saddam Hussein Cabdimajid Al-Tikriti wuxuu ahaa madaxweynihii dalka Iraq sanadihii 1979 ilaa 2003 wuxuuna ku dhashay Al-Awjah oo ka mid ah dalka Iraq Abriil 28 1937 wuxuuna ku soo barbaaray nolol agoontinimo ah aabihii ayaa xanuun u geeriyooday 3 bil ka hor dhalashadiisa hooyadii waxaa la oran jiray Subha Dulhaf Al-Musallid markii uu dhashay waxaa la wareegay adeerkii halka hooyadeena ay guursatay nin kale muddo kadib ayuu hooyadii u soo wareegay balse cadaadis iyo dhibaato uu kala kulmay ninkii hooyadii qabay ayaa sababtay in uu ka baxsado guriga hooyadii isagoo 10 sano jir ah wuxuuna aaday caasimadda Iraq ee Baghdad wuxuuna maciinbaday guriga adeerkii oo markaasi ka mid ahaa siyaasiyiin caan ka ah magaalada Baghdad Saddam adeerkiisa ayaa u guuray magaalada Tikrit halka